المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للابتداع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق ugu sareeya madrasada sidoo kale madaxa guud iyo xafiiska ee madrasadan kasoo qaybgalayaasha martida ugu horeeyo sheekh ayman dhammaan waalidiinta kulligiin waxaa idin leeyahay salaamta islaamka kusoo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu awalan marka ugu horeyso xafladan waxay u dhacaysaa maanta waa xaflad qalinjibin qur-aanka kariimka ah qur-aankana maanta waxaa khatimay laba wiil alxamdulilah waana labada wiil ugu horeysay madrasadan ee qur-aanka khatimay intaan toos xafladda ugu gudagelin waxaan jeclaan lahaa inaan ku furno qur-aanka kariimka ah ka oo inuu akhrinayo wiilka daadi yar rayaan yuusuf iftitaax alqur'aan بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
ربكما تكذبان صدق الله العظيم. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaas wuxuu ahaa rayaan yuusuf oo inuu akhrinayo qur-aanka kariimka barnaamijkeena daafur u ahaa. markan wax yar haddaan igaga dhaco madrasadatan. horta madrasadatan waxaa la aasaasay inta uu jiray masaajidka oo ah muddo aan ka yaran 6 sano. wuxuu leeyahay laba qaybood oo kala duwan, qayb ah bilow ah iyo qayb dhexe ah. qaybta bilowga ah waxaa loogu talagalay ardayda da'dooda ay tahay 5 sano ilaa iyo 10 sano u dhaxayso, halka qaybta dhexe loogu talagalay ardayda da'dooda ay tahay 11 sano ilaa 20 sano. madrasadan waxaa lagu bartaa ama ardayda lagu baraa luqadda carabiga, qoristeeda iyo akhriskeeda, iyo sidoo kale qur-aanka kariimka. tirada ardayda dhigata madrasadan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 45 arday. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waalidiintoodana oo u soo diray halkan in ardaydooda ay wax ku bartaan. barnaamij badan ayaa jiro ee madrasadan u qabata ardayda ay ka mid yihiin in ardayda marka qaarkood loo wado ausflug ama loo wado magaalo kale dalxiis. sidoo kale waxaa jira tartamo ee madrasada qabata ardayda dhexdooda ah ama arday kale ay la soo tartamaan ka oo lagu abaalmariyo cidda ku guuleysato. wixii faahfaahin dheeri ah gadaal ayaad ka maqli doontaan, iyadoo ka maqli doontaan maamulka madrasada insha Allah. markaana barnaamijkeena toos ayaan u gudagalaynaa. waxaan u wacaa halkan oo mikrofoonka aan ku soo dhaweynaa, idinkana ila soo dhaweeya madaxa guud iyo macalinka ugu sareeya madrasada sheekh maxamed nuur sheekh shariif. من لا نبي بعده. waxaa sharaf noo ah hadii aan nahay masjidka iyo madrasada Abubakar Fiisbaaden in maanta halkan aan ku qabanno xaflad qalin jabin ah taasoo aan u sameynayno 2 arday oo ka mid ah ardaydeena. waxaan halkan aan ugu mahadcelinayaa dadkii lafdhabarka u ahaa ee barnaamijkan soo abaabulay qabanqaabadeedana iska lahaa oo ugu horeeyo ustaadkeena maamulaheena macallin Bukhaari. waxaan leenahay jazaakallahu khayr aljazaa. waxaan kaloo mahad la mid ah aan u jeedinaynaa yaasiin daadiyaha barnaamijka isku xiraha. waxaan mahad gaar ah u jeedinaynaa ustaadkeena ustaad Ayman Caliyuddin oo ka socdo jamciyatu tabaadul thaqaafi. ustaadka mar walbo kulamadeena uu nagala soo qayb galaa, waana xibin naga mid ah. waxaan kaloo u mahad celinayaa waalidiinta, hooyooyinka, ardayda dhammaan ka soo qaybgalayaasha, qof walbo oo idin ka mid ah. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta halkan waxaan u joognaa in aan karaamayno oo aan sharafno ardaydeenna. ikraamkaasna waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid ah inna min ijlaalillaah ikraam dishaybati lmuslim, in la weyneeyo oo la sharfo qofka waayeelka muslimka ah, waxaamil alqur'aan iyo qofka saaxibulqur'aanka ah kaasoo qur'aanka aan ku xadgudbin oo aanan goynin oo qur'aanka siduu u yahay u akhrinayo, iyo qofka xaakimka ah sultaanka ah oo cadaaladda badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexdaas inaan weyneyno ayuu jecel yahay. ayuha alikhwa, dhammaantiinna waxaan idinku bishaaraynayaa in aad tihiin ahlulqur'aan. ahlulqur'aan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wuu ka doortay, waa ehelka ilaahay, waana khaasada ilaahay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay inna lilaahi ahliina min annaas qaaluu man hum yaa rasuula allah qaala hum ahlulqur'aani ahlullaahi wa khaasatu. nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay dad khaas ah oo awliyadiisa ah. way weydiiyeen saxaabada, waxay dhaheen yaa rasuula allah waa kuwaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ehelkiisa ah. nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ehelka ilaahay iyo khaasadiisa waa ahlulqur'aan.
وددك أهل القرآن كأه وأنا خاصة إلهي سبحانه وتعالى وحلو باهي هاي سيانو نقول أهل القرآن كي خاصة إلهي إن قرآن كأن برنه أو أن كل قنه سيد إلهي سبحانه وتعالى قربه شرفت هنا يقوشين وحيكو جرتاه قرآنك وحن لي هاي والدينتا خاصة هويوينك أو كوا عرورت أنت بدن وقتك وجو بدن إسلاقاتان المهينا وقتك وجو بدن جلية وح وجوين يهدفك وجوين المهاجة إنه جارة أربتنا هالنقطة إنه القرآن كحفظيه إنه القرآن كبرته تربية الإسلام كنا إنه كنت تربية أو صحيحة وقتنا أجلست dadka halyeeyada culimada dadka sharafta badan oo dunida soo maray dhamaantooda waalidiina ka dambeeyay khaasatan hooyooyin maxay la hooyooyinku waa madrasad al-ummu madrasa ida a'dadta sha'ban tayyib al-a'raq marka hooyooyinka inay ku dadaalaan ilmahoodii sida ay quraanka u bari lahaayeen maxay mar hadii cunuga quraanka aad baratid quraanka ayaa wax walba baray qof saalixiinta kamid ayaa wuxuu yiri ilmaha quraanka bar isaga wax walba bari doono ardaydan waxaan leeyahay quraanka adduunka inta joogtaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu idinku sharfaaya oo waxaan noqonaysaan kuwa dadka ugu khayrka badan hadii qofka bari u dhintana qabriga ayuu wehel iyo nuur ugu noqonayaa siraadka markuu maraayna nuurku ku mari lahaa siraadku u noqonayaa ilaahay markuu tagana waa midka u shafaaca lahaa markuu jannada galayna sida dadka jannada u galaan si ka duwan jannada u galaya oo waxa leeyahay اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أدونك ساقو آخر جرت قرآنك وآخري درجوينك الجنة فول قرآنك على ديك ترتيب وآخري آيات قدام بيسا آخر ست قرقاق وماشا مارتي آيات قدام بيسا قرآنك أكل ميست شرف كوين مجرته شرف قفك إن إله سبحانه وتعالى قرآنك يسؤوب بره كدبنا قرآنك أو إلاليه وكل رقمه شرف كوين مجرته بل النبي صلى الله عليه وسلم وحلقة ما سيره ومجرته إلا لبشي موياني قف إلهي قرآن أو بري هبيني مالين آخرين هاي قف إلهي سبحانه وتعالى مال أوسيه مال كيس خيرك كبابي ومر بخيرك كبحيه أيها الإخوة وحن كل دردار مايا إن قرآنك أنكود الددالنا أرديد قرآنك لما يسينا إن قرآنك أيسن إلاوين ورد جوكتا إيشان معلومة بالله أخريه قرآنك أن لإلاوين أرديد هذا هرو سعته أيضا محلية هاي مثال يكود يشو أي إذن يهين أرديد لما يسي إذن كانوا حرجيننا مالنتين إن شاء الله حفلات قروح بدن تنوكله إن لإذن سميه أردي والبها كفكروا مالنتين إني سوقيسو تنه هؤد ذالو إن شاء الله إنو قارو بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين ربنا لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا أسأل المولى سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على غير أرحام بيننا أن يجمعنا في الجنة في مستقر رحمته إن شاء الله تعالى. في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير فضيلة الشيخ محمد إمام هذا المسجد المبارك، وأتقدم كذلك لإدارة هذا المسجد ولجماعة هذا المسجد
ولرواد هذا المسجد، وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم وأن يوحد كلمتهم. في الحقيقة هذا نشاط طيب مبارك في هذا المسجد الطيب المبارك، أن نلتقي حول القرآن الكريم، أن نحتفل بأبنائنا الذين ختموا القرآن تلاوة وقراءة، وإن شاء الله تعالى يختموه حفظا كذلك. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال العلماء: النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن الكريم. فشيء طيب أن نلتقي مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، وشيء طيب أن نستمع إلى ابننا ريان الذي افتتح بالقراءة والتلاوة من سورة الرحمن. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله قرة عين لأمه إن شاء الله تعالى. القرآن هو كتاب هداية وكتاب نور. يكفي أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، لقارئ القرآن يوم القيامة: في هذا اليوم الصعب الشديد الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. القرآن يأتي في هذا اليوم يشفع لصاحبه. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. صلوا على رسول الله. فشيء طيب أن يهتم إمام المسجد وأن تهتم إدارة المسجد بحفظ القرآن الكريم وتربية الأولاد على القرآن الكريم قراءة وتدبرا وفهما ثم عملا وتطبيقا إن شاء الله تعالى. كذلك تحية خاصة لأولياء الأمور، للأباء والأمهات، الاهتمام والحرص على تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجيل الأول الذي تربى على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتأسى بهم في هذا الجانب. تحية لكل أب اهتم بولده، اهتم ببنته
وأتى بها إلى المسجد لتحفظ القرآن الكريم. تحية لكل أم اهتمت بولدها، اهتمت بابنتها وجاءت بها إلى المسجد لتحفظ القرآن الكريم. أقول أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أننا نعيش في هذه الديار كي نحافظ على أبنائنا، كي نحافظ على أولادنا، فعلينا أن نحرص على تحفيظهم القرآن الكريم. علينا أن نذهب بهم إلى المسجد، علينا أن نشجع هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأولاد، نجتهد معهم، فهذا هو الاستثمار الحقيقي. الاستثمار ليس في تأمين مستقبل الأولاد بوضع الأموال في البنوك وفي رقم الحساب وفي دفتر التوفير وبشراء البيوت والعقارات وما إلى ذلك. الاستثمار الحقيقي في أن يتعلم هذا الابن وهذه البنت القرآن الكريم. الاستثمار الحقيقي أن يتعلم الأبناء الصلاة، أن يتعلم الأبناء القرآن، أن يحافظوا على الصلاة، أن يذكروا الله، أن يسبحوا الله، أن يعيشوا في هذه الأجواء الإيمانية. هذا هو الاستثمار الحقيقي. ولذا عندما يخشى الإنسان على ولده أو على ابنته فعليه أن يخشى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تحية خاصة لهؤلاء الأبناء، تحية خاصة لابننا مهد وابننا زبير. أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجعلهم قرة عين لآبائهم. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينور بالقرآن قبورنا. اللهم نور بالقرآن قبورنا، ونور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن بيوتنا، واحفظ بالقرآن أولادنا، واهد بالقرآن شبابنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. هؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يحفظهم. اللهم احفظهم بحفظك يا كريم، اللهم احفظهم بحفظك يا كريم، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من العابدين، اللهم اجعلهم من الطائعين، اللهم اجعلهم من الذاكرين، اللهم اجعلهم من الحامدين، اللهم اجعلهم من المسبحين، اللهم اجعلهم من المستغفرين، اللهم اجعلهم من الصالحين، اللهم اجعلهم من الصالحين. اللهم احفظهم في هذه الديار، اللهم احفظهم في هذه الديار، احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم قرة عين لآبائهم، اللهم اجعلهم قرة عين لآبائهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. dhammaan ardada macallimiinta wiilasha qalin jabinaya Sheekh Ayman waalidiinta meesha ka soo qayb gashay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kolley waxaan u maleynayaa waqtigu waa nagu yar yahay, laakiin hadalkayga waa soo koobayaa. laba kelmo oo yar ayaan ku soo koobayaa. marka koowaad ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala. marka labaad
waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteenna macallin maxamed iyo macallin bukhaari oo maanta xafladan aynu qabsanayno iyagu halkaas keenay oo meel fog ka soo bilaabay oo ardada muddo ku soo dadaalay maantana labadii arday oo ugu horeysay ayaa qalin jabinaysa quraanka dhameeyay waa shaqo aad u adag oo maanta waliba marka loo fiiriyo meeshan joogno uusan qaban karin qof walba qaban karin waa ilaahay agtiisa ajar uga sugnaaday anaguna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay ilaahay idinka ajar siiyo kulli waa amal aad aakhira u dhigateen waxaanu idinku dhiirigelinaynaa inaad sii wadaan insha Allah sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Sheekh Ayman oo kulamadeena inta badan inaga soo qayb gala inoo yimaada inaga warhaya marmarka qaar oo wax inaga siihiin inaga fududeeya wuxuu ina awoodo isaguna aad u mahadsan yahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro ardada labada wiil oo maanta inoo qalin jabisay waxaan u maleynayaa madrasadu intay fureed waa labadii arday oo ugu horeysay oo qalin jabisay waana lagu soo xigayo iyaga kaliya ma aha laakiin maanta iyaga nasiibka u yeeshay in ardadii ugu horeysay oo Fiisbaaden ka qalin jabisay ay noqdaan iyagana waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay warnimayo waa dhameystan maanta quraanka laakiin xifdin buu idinka rabaa inaa xafidaan buu rabaa in sha Allah biidna Ilaahi kariimna waa xafidaysan haddaad ku dadaashaan waalidiinta caruurta ku soo dadaalay oo mar walba soo kaxaynayay keenayay soo dirayay iyaguna aad u mahadsan yihiin xasanaad iyo ajar bay ka helayaan annaga ka gudi ahaan in sha Allah biidna Ilaahi kariim waxaan balan qaadaynaa hadda kadib inaanu macallimiintana aad uga caawin doono barnaamijka dugsiga in sha Allah hadii Ilaahay yiraahdo wixii kale oo karaankeenna inaanu insha Allah qaban doono intaanu joogno waqtiguna waxaan u maleynayaa aad buu inoogu yar yahay hadalkaadeen dheerayno waa maqrib aan ku gaaraya marka hadalkayga halkaas aan ku soo koobaya waan idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ardayda ay ka mid ka yihiin magacyadooda aan sheegay insha Allah ملاك رفيف سامية بشرى موها إيا مبسوط طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا يا تكبير تكبير ما شاء الله هذا ما تسمع waxaan jeclaan lahaa in barnaamijkeena maadaama uu marayo dhexdhexda inaan ku yaranasano quraanka kariimka halkaana waxaa quraanka kariimka inoo akhrin doono cid kale ma ahan ee waa dadka xafladan ay qusayso qalin jibiyay oo dhabar adeegay shahaadadoodana maanta la guddoonsiin doono insha Allah magacyadoodana waxay noqon doonaan Subayr Saciid Ahmed iyo Mahad Abdul Qadir Xuseen الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan waalidiinta culimmada meesha fadhiso macallimiinta marti sharafta kale ee ugu horeyso dhalinyarada naftirkooda yaan ka tagin waalidiinta isku jira rag iyo dumar ardada waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka oo ah mid la isku salaamo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay haddii aad isku salaataan waa is jeclaanaysaan taasoo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta ay tahay maalin taariikh ah maalin khatim qur'aan ay tahay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu ka dhigo maalin khitaamuhu misk wa fii daalika falyatanaafasil mutanaafisuun in shaa allah. waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gashaan xaflad qalinjibin qur'aan ah dufcaddii koowaad ee madrasada abubakar fiisbaadhan dhab ahaantii madrasada abubakar taariikhdeeda wax yar waxaa idin taabtay walaalkay barnaamijka xiriirinaya yaasiin haddii aniga mar labaad idinkugu celiyo muddo madrasada waxay aasaasan tahay 6 sano ah oo ah inta masjidku waa asaasnaa. madrasada waxay soo martay heerar kala duwan waxaa soo martay arday kala duwan macallimiin kala duwan maantay oo aan ku jirno bisha November waxa ay tirada ardayda maraysaa 45 arday waxaa mahadaas iska leh Allah subxaanahu wa ta'ala kadibna waalidiinta ilmaha madrasada u soo dirsaday anagoo aan ognahay inaan ku sugannahay dal xaaladiisa qof walba ay ka warqabto. madrasada waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan waxayna muxuuha madrasada bixisaa maadooyin kala duwan ay ugu horeyso tarbiyada islaamka oo ah waxa ugu horeeya ubadka islaamka amaba ubadka muslimka ah la baro. waxay sidoo kale madrasada ilmaha bartaa amaba ay bixisaa maadooyinka luqadda carabiga qoraal iyo qorisba qoraal iyo akhris dhehe quraan kariimkana kama marna ardayga marka uu qoraalka iyo akhriska barto. madrasada waxay qabataa barnaamijyo gaar ah oo ay ka mid yihiin asflugeen ugu dambeeyay wuxuu ahaa kaasal oo aan ku maqneen muddo 3 maalmood ah. ilaah subxaanahu wa ta'ala wuxuu nagu soo dhameeyay si nabad sharaf iyo qiimo leh oo halkan nagu soo dhaweeyay. madrasada waxay ka qayb gashay tartamo caalami ah oo lagu qabtay magaalooyin ka mid ah magaalooyinka noogu dhow oo ay ugu horeyso Mainz. barnaamijka oo magaciisu ahaa 100 Fragen über unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. arday ka mid ah madrasada ayaa waxay ka gashay kaalmo koowaad kaalin koowaad iyo labaad iyo saddexaad ba ma sha Allah shahaadooyin kala duwan ayay ardaydii soo gudoomeen. taas waa
tartamada bannaanka madrasadu waxay qabataa tartamo gudaha ah oo ay ilmaha ku abaalmariso ciddii ku guulaysato higsiga iyo qorshaha madrasada ayaa waxa uu yahay markii aan ka tallaabno baddaan weyn oo ah in barnaamijyo kala duwan iyo waxbarasho heer sare ah inaan u helno ardada waxaan sidoo kale aan qorsheynaynaa insha Allah in sidoo kale aan waxbarasho heer sare ah u helno dadka waaweyn isku jira rag iyo dumar anaga oo muxuu ahaa u raadsanayno la tashanayno macallimiin kale ee isugu jirta rag iyo dumar oo aqoontooda aad u sareyso waxaan rajaynaynaa insha Allah taasna in muxuu ahaa aad insha Allah idinka nala garab istaagtaan madrasada waxay soo dhaweynaysaa qof walba oo muxuu ahaa wax nagu soo biirin kara waxa ugu horeysa aqoonta diineed maanta meesha aad joogno waa meel kaliya maadigeeda uu wanaagsan yahay laakiin diinteeda la rabo anaga in muxuu ahaa ilaashano dadka nooga sareeyo iyo muxuu ahaa macallimiinta iyo mashaayikhdiina anaga la tashano dadkii waxna bari karan ee na baraan madrasada waxay muxuu ahaa u furan tahay qof walba iyo muxuu ahaa magaalo walba ka soo jeedo minus haday noqoto fees burden iyo magaalo walba sida caadiga ahna madrasada dad ayaa waxay ugu imaadaan magaalooyin ka baxsan fees burden oo taqriiban u jirto muddo 30 daqiiqo ah ka madrasahan fees burden waxa sharaf weyn inoo ah in aan noqono madrasadii ugu horeysay oo Jarmalka ku taalo oo ay leedahay Soomaali ee arday ay ka qalin jibiyaan waxaan rajaynayaa insha Allah kaalintaas inaysan jirin cid nagu qabsan doonto waxaana marka koowaad mahadaas iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala kadibna mahadaas waxay u sugnaatay macalinka muxuu ahaa u soo dhawr adeegay muddada ay quraanka ardayda soo wadeen ustaad Maxamed Nuur Shariif oo taqaanaan macallin Maxamed Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinka qiyaamo shafiixa uga dhigo insha Allah waalidiintana ardaydooda ama caruurtooda quraanka dhameysay waxaan ugu hambalyeynaa oo ay ugu horeeyaan adeer Saciid adeer Cabduqaadir dhanka maamooyinka maama Ijaabo iyo maama Zamzam waxa ugu hambalyeynaa dadaalkii ay soo muujiyeen maanta oo ay mirahooda muxuu ahaa guranayaan xafladan oo muxuu ahaa aysan jirin xaflad ka qiimo badanna maanta halkan u wada joogno kullay xaflado badan ayaa jiro oo la qabto ha ahaadan kuwa siyaasad ha ahaadan kuwa aroos ha ahaadan kuwa dangaar laga leeyahay laakiin ma u maleena inay jirto xaflad ka qurux badan xafladan maanta isugu imaanay maadaama aan ku xuseyno meeshan aan ku sharfeeno aan ku karaameynayno dad dhameeyay quraanka kariimka oo ah wax la barto wax la isugu faano wax ugu khayrka badan waxaan rajaynaa insha Allah in muxuu ahaa arday nala joogta hadda ayagana maalinkooda inaan san ugu dabaaldegi doono will the next sign insha Allah mila socotaan will the next ya rab quraanka inoo dhamay mar labaad insha Allah oo ku naqsada xaflada labaad kulligood ma sha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah kullanku ku xiga in sidoo kale arday wajiic cusub insha Allah ina aragtaan oo ayna marka quraanka dhameeyay insha Allah waxana waalid iyo marti sharaf ka codsanayna insha Allah in ay noogu duceeyaan insha Allah ardada yaryarka iyo waaweynka si Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxbarashadu ugu fududeeyo ayna u noqdaan dad diintooda ilaashto waxaana muxuu ahaa ka codsanaynaa waalid walbo insha Allah macallimiinta iyo madrasada iyo masjidkaba in la garab istaago maanta ma heesano hooy kale oo anaga aan leenahay oo aan dhihi karno waan ku baran karnaa diinta islaamka hooygeena koowaad waa masjidkan Abu Bakar Fees Burden waxaana rajaynaa insha Allah waalidiinta inay garab u muujiyaan sidaba hadda garab ugu muujisaan macallimiinta iyo masjidkaba ugu dambeyn waxaan rabaa halkan in ugu mahadceliyo dhamaan ardada ugu horeysiina madrasada oo barnaamijkani muxuu ahaa qayb weyn ka qaatay agaasimkooda dhalinyarada nidaamka noo dhowreysa oo muxuu ahaa barnaamijka practicalkiisa xul bilaalinaysa waxay ka tirsan yihiin madrasada dadkii soo abaabulana waa ayaga
waxaa sidoo kale aan ka marnayn aan ku xijinaa waalidiinta oo habeen iyo maalin barnaamijkan u soo taagnaa macallimiintana waxa waaye ayagana booskooda mar walbo waxa waaye kama maqneen oo ayagana habeen iyo maalin u soo taagnaayeen waxaan muxuu ahaa sidoo kale u mahad celinaa mana u maleynayo halkan inay nagula sugan tahay Umu Rayaan oo ah maamada dhashay Rayaan wiilkan maasha Allah maanta quraanka noo dahfuray oo noo qurxisay meeshan aad arkaysaan dhabahantiina waqti dambe ay ahayd markii muxuu ahaa meeshan la qurxinaysay iyadoo madrasada cunugeeda uusan dhigtin oo aan madrasada ka tirsaneen laakiin ajir ay raadsanaysay jacayl ay jeceshahay Soomaalida jacayl ay jeceshahay muxuu ahaa jamaacada masaajidka ayaa waxay noo ogolaatay iyadoo oo ka soo baxday shaqo in ay nacaawiso ayna garab istaagto been idin ma sheegayo xalay aniga iyo Rayaan iyo Rayaan waxaan masjidka ka tagnay marka saacada ahayd taqaabin fanshuwa iyadoo markaa shaqo ka soo baxday marka iyadana insha Allah waxa ugu talagalnay shahaado qaas ah oo ay madrasada ugu talagashay insha Allah qaybta shahaadooyinka ayaan muxuu ahaa hadhowdii ku bixin doonaa insha Allah waxaan jeclaan lahaa hadee nolol sugan tahay insha Allah iyadan ku soo dhaweyn doonaa isbeeta mise hadhowdii insha Allah laakiin waxaan idin sheegaa in muxuu ahaa dad saa u wanaagsan ay jiraan oo masjidka shaqo aan ku lahayn oo laakiin jecel khayraadka waxaan sidoo kale u mahad celinaa waalidiinta ardadooda ee qalin jibsa ayagana barnaamijka qayb weyn ka qaatay waalidiinta kale ee barnaamijka nagala qayb qaatay barnaamijka aad u quruxda badan dhab ahaantii madrasada waa family insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah in muxuu ahaa magaalooyin badan ay Fiisbaden u noqoto hoggaan insha Allah khayrka inay Fiisbaden u noqoto hoggaan ayaan rajaynaa insha Allah waxaan rajaynaa Fiisbaden inay u noqoto hoggaanka khayrka iyo hoggaanka guusha magaalo walba insha Allah waxaan rajaynaa qof walba oo maanta meesha fadhiyo in uu marqaati ka noqdo dadkan quraanka dhameeyay in quraanka aysan halkan ku sii ekeen doonin madrasada waxay muxuu ahaa si bixinaysaa xifdi oo macallimiin muxuu ahaa ee noo joogto oo Ustaad Maxamed ugu horeeyo oo u qaabilsan xifdinta ay bilaabi doonaan insha Allah waxaan rajaynaynaa dadka hadda quraanka dhameeyay in ay noqdaan macallimiintii anaga birin bedeli lahaa insha Allah kuwa kale oo soo socdana waa rajaynaynaa ayagan insha Allah warkeedu kuma badina insha Allah waxa mikrofoonka ku celinaa xiriiryaha barnaamijka Ustaad Yaasiin insha Allah maadaama macallimiintii ay qaateen ardaydii ay qaateen markaana waalidiintii oo intaas oo dhan soo aasaasay ciyaalkooda una soo diray dugsiga inay wax bartaan una dhabar adeegay insha Allah markaan waxa ku wareysiin doonaa waalidiinta adeer Saciid Axmed فضلا صدقوا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله وحنا مرينا يا وقت دم بعيون نشوفنا ودي وحويا وقت ويسكا كوبان يهي أولا وقبل كل شيء وحن هاد علينا يا معلمين تي سواء أبو لي حفلة ده إسلام مركانا أها معلمينتي أرديدا سينا يا قرآنك إن مدة إيانا وحليه جزاكم الله خيرا إلهي معناها إن كعب المريو ميسانك حسنات كنا إلهي هاي نكدرو آخره مالين أنا وحكى لي أنفعين إلا مو عمل صالح مو يعني وقفك وهرمر سدي مركا مهدا قاركا أو إلهي مهدي سكدب وحنو تشيدين يا معلمين تينا ardayda quraanka u soo dhigay tan kale waxaan u mahad celinayaa iyagana ardayda maartay quraanka akhriskiisa dhameeyay ama maxaan ku raahdaa ka qalin jabiyay waxaan iyaga u raacinayaa inaanay intaa ku joojin quraanka ay sii wadaan oo macnihiisii iyo xifdigiisii ay sii bartaan maxaa yeelay quraanku wuxuu qofka ugu dhadhami karaa marka uu barto akhriskiisii xifdiyo macnihiisina uu barto maxaa yeelay quraanku wuxuu la hadlayaa dadka uu la hadlayaa waa inaga marka maadaama uu quraankii luqada carabiga uu ku soo degay
oo ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu waxyooday waxa muhiim ah qofku inuu luqadda carabiga barto qur'aankana macnihiisa uu barto marka aad luqadda carabiga barto waxay kuu fududaynaysaa fahamkii qur'aanka waxay kaloo kuu fududaynaysaa axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad fahamto oo aad macnahoodii wixii ay ka hadlayeen aad barato marka maadaama inaga luqadeenu ay luqad ajamiya tahay oo luqad Soomaaliya ay tahay waxa muhiim ah qofku inuu barto macnihii qur'aanka si marka waxaan qur'aankii ugu tadabburo oo qur'aanku waxa uu ka hadlayo uu ogaado marka iyagana intaas ku dhiirigelinayaa dhalinyarada kale ee dugsiga dhigata malcaamada dhigata ama intayba wadankii wax ku soo dhigteen hadda suuqa iska jooga oo waxa weeyaan magaalada iska jooga in iyaguna masaajidada ku soo xirmaan quraankii qofkii soo bartay uu dib u akhriyo dib ugu noqdo maxaa yeelay waxa kaliya guusha lagu gaari karaa adduunka iyo aakhiradaba waa quraanka weeye oo nabigeena calayhi salaam loo waxyooday oo ilaahay uu wax badan aayaadka quraanka kaga waramay waxa kaliya ee qofku uu adduunka iyo aakhiradaba uu ku liibaani karaa waxa weeyaan waa quraanka weeye oo uu barto oo uu ku dhaqmo oo maartay waxa weeyaan uu ilaahay ugu dhawaado maxaa yeelay adduunyadu waa muddo iska gaaban waa laga tagayaa qofka u badan oo la cimrigiisa 70 sano jiraya laakiin wal aakhiratu khayrun wa abqa dambaynaysa ee hadaysa ee mustaqbalka dhabti waxaan waa aakhirada hadda sidii sheekh Ayman uu inoo sheegay jazaahullahu khayran markii uu nala hadlayay waxa weeyaan waalidku wuxuu yiri waxa la rabaa in waxa uu muhiimadda siinayo ilmihiisa uu ku darbiyeenaya inay tahay diinta ma aha inuu yiraahdo sidoo u shaqeystaa sidoo banki u weyn u furtaa sidoo macna lacag badan u dhigtaa meel taa waxa ka muhiimsan in uu wixii aakhiro uu la tagi lahaa uu maartay uu diyaariyo oo ay ka mid tahay quraankii oo uu baro salaadii oo uu baro diintii oo uu baro marka qof walba wuxuu mas'uul buu ka yahay ilmihiisa oo mas'uuliyad baa ka saaran waxa weeye waa dhashay halkan aad keentay ama halkan aad ku dhashay maaha inaad maartay aynu iska sii dayno laakiin waa in lagu ilmihi lagu barbaariyaa oo lagu dhiirigeliyaa in uu quraankii barto oo diintii barto masaajidadii la keenaa masaajidka lagu soo xiraa marka waxaan taas ayaa muhiim ah taana waa inaynu wada sameynaa dadkeena kale caamka waa inaynu masaajidada ku soo xiranaa maaha salaadii oo la adamayo inaynu gidaarkan iyo meelahan darbigan aan iska taagnaano qofku waa inuu waqtiga salaada ilaashadaa marka waqtigii salaada la gaaro masaajidka haduu ku dhaw masaajidka uu ka gaara haduu gurigiisa joogo uu isla markiiba salaadii tukadaa marka waxaan taasina waa taa waxaan mar labaad u mahad celinayaa macallimiinta jazaahumullahu khayran baa leeyahay waqtigoodii wax badan bay ka bixiyeen inagoo aynu ognahay in qof walba waqtigiisu ciriir yahay oo maadaama dhulkan ama wadamadan marka la joogo ay adag tahay qofku markuu shaqeynayo ama wax baranayo waqtigiisa inuu wax ka bixiyo ay adag tahay haddana inay maalinta sabtida iyo xad ay faraaqada leeyihiin ay waqtigoodii wax ka bixiyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ilaahay ka abaal mariyo aakhirana ilaahay macnaha waxaan ajir fara badan ifkana ilaahay ku ilaaliyo oo maartay ku nabadgeliyo wixii maartay waxay ujeedooyinkooda ay leeyihiin ilaahay ugu fududeeyo marka intaas aan ku soo gabagabeynaya waa dheereeyay waqtina ma haysano wassalaamu calaykum waraxmatullahi cabdiqaadir xuseen si waa isagana laba kalmood halkan kaga soo jeedin insha Allah يا شلون أن سلام وعنكم سلام صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي يانكم حمدنا مركه حمدك وحاسك لأوه الرأي الله أو نجارسي إن حفلتان إلهي أو أساسه ونكسر أنا سكون ماذا فضل جاينكم عن إلهي فضل جيسكوا أعطي قدرتيسا مركا ما هاد ور بدل الله مباهنه وحي ليلا واقعي أخيارات العلماء تري واحد ما والله الشاقي warka wuxuu isku imaanaa inaan ilaahay ka baqno ittaqillaah haythu ma kunta isku imaanaysa marka waxaan u mahadinahay oo xamaad ku celinaa Allah waxaan thumma hadana ku celinaa macallimiinta jazaakumullahu khayra dhalinyaradan oo ayaga quraanka dhameys ilaahay xafidiyo adigana leeyahay waxa way dadaal culimadu noo sheegtay waxa way ma ahan waxa la siiyo waalid ilmaha la siiyo waa taqwa ilaahay in diinka ilaahay barto way admana qasr leedahay mana guriga leedahay mana gaarada waa ka tagaysaa laakiin tan waxa way wanaaga hadaad barto oo ku amal falo ajirkiisa leedahay adina ajri wasdaqul jari ku naqnaysaa marka macallimiinta waxaan leeyahay ilaahay khayr badan siiyo وجزاكم الله خيرا ويلشدين وعلى إلهي حفظه لما أنه أو أي قرآن كان دكتور يا مدرسة يا معلمين ما يعيش شيء ما أول وحنكم سلامة صلاة السلام السلام عليكم ورحمة بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحن سلام يا كسوق قلياش حفلة شرفت له
ee qiimaha badan ee maanta noo dhacday ilaahay subxaana wa tacaalaana ku mahadsan waxa kaloo mahadda labaad iska leh macallimiinta iyo intii soo qabanqaabisay oo ka soo shaqaysay waxayna noo tahay dhiirigelin iyo farxad ayay noo tahay waxaan u malaynayaa maanta waxaa noo bilaabatay dacfadii koowaad ee muxuu ahaayey qalinjabinta qur-aanka kariimka ah insha allahna waxaan rajaynayaa kuwo badan oo kale inay ku daydaan oo sida iyagu u dadaaleen oo dadaalka faraha badan oo ay sameeyeen iyaguna maaragtay u dadaalaan insha allah biidnillaahi baari waana u ducaynaynaa ardayda yaryar oo noo qalinjabisay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu maaragtay qur-aanka uga dhigo mid ay maaragtay iyagu wax ku dheefsadaan awlaadooda dambe iyo mustaqbalkooda dambena ay wax ugu qabtaan iyo wixii maaragtay muxuu ilaahay subxaana wa tacaala uu mas'uuliyad ka saaray dhammaan waan salaamayaa ka soo qaybgalayaasha mar labaad waxaana rabaa inaan maaragtay hadiyad yar oo aan ugu talagalay wiilasha yaryar inaan guddoonsiiyo insha allah biidnillaahi baari haddii ilaaha idmo aad baan idin salaamayaa ku dhigin assalaamu calaykum waraxmatullaahi hadiyadooyin ay iyada ugu soo talagashay si qaas ah hadiyad koowaad markaan waxaa gadoomay mahad allahu akbar hadiyadda labaadna markaana waxaa gadoomay suhayb oda zubayr maamo mahadsanid maamo hodan baan u mahad celinayay inay gisheenka noo soo qaaday maanta waad mahadsan tahay maamo aniga hataa dhinaca waxaa ka dhahayaa dankishoon mahad cabdiqaadir barnaamijka ahna shahaado guddoonsiinta markaan ardayga ugu horeeyo shahaadada la guddoonsiin doono magaciisa wuxuu noqon doonaa insha allah subayr saciid axmed maasha allah subayr shahaadadiisii waa uu guddoomay markaana ardayga labaad ee shahaadada guddoomaya magaciisa wuxuu noqon doonaa qaadir xuseen aad iyo aad waxaan leenahay ardaydaas hambali waad muteysateen maanta way idin ahaatay shahaad markaana macalinka ayaa inoo harsan inuu isagana hadiyad guddoonsiiyo waxaan leenahay macalin maxamed nuur soo dhawow guddoonsiyo qofka aad la jeclaatay shahaadada hadiyad maanta inaa guddoonsiiso insha allah waa macallinkii lafdhabarka u ahaa barnaamijka inuu qabsoomo run ahaantii xafladdan agaasinkeedii isku xirkeedii in badan ayuu maaragtay u soo jeeday habeenada qaar uu u dhafray ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa in miisaankiisa xasanaadka ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhigo macal bukhaari wuxuu noo yahay qof ku dayasho mudan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa in bulshadan uu ku anfaco baaraka allahu fiikum hadiyaddan iyo hadiyado kale oo ka qaalisan wuu naga mudan yahay qalbigeena ayuu degan yahay walaalaha kale oo halkaan aan ugu mahad celinaya waxaa ka mid ah walaal yuusuf oo isagana ah qof ikraamka iyo khayrka jecel mar walbo aan ka maqnaanin khayrka isagana waxaan leeyahay sida hadda ka horba aan dhahay yadaaka yadaa sidqin fakafun mufiidatun wa ukhraa idaa maa dunna bizaadi tunfiqu ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo walaalka yuusuf waalidiinta iyo ardayda dhammaysay waan u bishaaraynayaa nabiga wuxuu dhahay alayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aan wa callamah maqribaa la joogaa warka ma dheereenaayo waxaa rabaa marka waad inuu mahad celiyo dhammaan marsharafta kala duwan barnaamijka ka soo qayb gashay waxaana aad ugu faraxsanahay in muxuu ahaa dad badan oo muxuu ahaa walaalaheena ah oo aad noogu faraxsan inay barnaamijka nagala soo qayb galaan waxaan rabaa in aan si qaas ah ugu mahad celiyo mahad celin weyn mahad celin la mahad celiyo mid ugu quruxda badan walaalkeena jiinde media iyo muxuu ahaa iyo cabdullaahi
oo ayagana ah dhalinyaro muxuu ahaa dhanka meediyaha naga caawinayay aaday u mahadsan yihiin sida wacan muxuu ahaa barnaamijka nogala soo qayb gasheen sida wacan barnaamijka noogu dubteen sawirada quruxda badan fiidiyoyaasha quruxda badan noo sameyseen ilaah subxaanahu wa tacaala ajir iyo xasanaad alla soo koobi kan ilaah ka siiyo kullay mahad celiyo mid ugu qiimaha badan aadin mahad celin karno taas ahayd insha Allah barnaamijyo kale oo qurux badan insha Allah waan jeclaan lahayn inaad nagala soo qayb gashaan aad u mahad جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بحبيب الله طه المصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع جئت شرفت البرايا هاديا تمحو الضلال مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا أجل الخلق قدرا يا إمام المرسلين يا ختام الأنبياء يا رجا المستضعفين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين maanta waa xafladii labada arday ee qalin jabisay Mahad iyo Zubayr farxadoodii ayaan maanta ka qayb qaadanaynaa waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka barateen Ilaahay ku xifdiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ahlul quraan ha idinka dhigo waxaan leenahay hore u sii socda haddana insha Allah keegoodii iyo farxadii ay bilaabanayaan السلام عليكم ورحمة الله علينا ما سعى لله ساعة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آدي أيو ماسن ياهي كاس وحو أها ريان يوسف أو قرآنك برنامج كيني إنو سو حراي